halkani oo ah deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan degmada Garadag ee gobolka Sanaag waayeelka salaadiinta waxgaradka iyo qorweynta beesha Axmed Faarax oo kamid ah beelaha ugu ballaaran ee dega gobolka Sanaag ayaa kulan ay ku yeesheen deegaankani Fadhigaab waxay si rasmi ah ugu shaaciyeen in deegaanka Laasgalool oo ka tirsan degmada Celafweyn ee gobolka Sanaag lagu qaban doono shir ay weyne ay beeshaasi yeelan doonto kaasi oo la magac baxay ururshe waayeelkay salaadiinta iyo cuqaasha halkaasi ka hadashay waxa ugu baaqeen cid kasta oo beeshan kamid ah oo ka soo qayb gali karta shirkani inay ka soo qayb gasho ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay Suldaan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaale Suldaan Axmed Faahiye Mire Chief Caaqil Faysal Abubakar Xasan عاقل عبدي إسماعيل ويل إيو وحقرت كلام وحين دمانتود با اسكدبا مرين مهمة الشركة اللي هي أنا دياد وقام هادنا قيا سيدا شرفت إيا قيمها إيا كرامة إيا عسي قاليه إيا دقمدا فردقابا إيمانتن لوغو سودو ويه وفتي إيا قبلاران إيا كاسو أنبابحي قلبيد هرقيسا iyo burco maanta waxaanu ka mahadnaqaynaa sida sharafta iyo qiimaha iyo karaamada leh inoo ku soo dhaweeyay waxaanu kalaanu doonaynaa inaanu beesha Axmed Faarax qurbe joog iyo qolqol joog iyo meel kasta ay joogto inaanu sheegayno inaanu shir qabanay heshiisna aanu ku nahay bisha 10keeda bisha 11aad oo aanu ku qabanayno dooxada Laasgalool ee ka tirsan degmada Celafweyn qodobadayadii arrimahayagii hadalkayagii nuxurkayagii wax walba waxaanu ka soo saaraynaa oo lagu sugayaa oo loo diyaar garoobayaa inaanu shirka ka soo saarno aan hadalaanu u dhannahay cid kasta oo ka soo qayb galaysana waxay la soo xiriirayaan gudida qabanqaabada ee shirka wada aan kala ogeysiinayo qurba joogta beesha iyo qolqol joogtaba shirka wax dalka iyo dalka mid anfici doona ka soo bixi doona insha Allah mid loo aayaabo noqon doona markaasaan go'aayada soo saari doona waxaan leenahay insha Allah wuxuu noqon doona shir guul ku dhamaada sida loo socdo cid kasta oo danaysa oo beesha kamidna waxaan doonay dhaqso haw timaad mudada loo qabtay beesha Axmed Faarax qurba joog iyo qolqol joog iyo meel kasta ay joogaan daafaca caalamkaba aanu ogeysiinaynaa shirkii ururshe oo ah bisha 11aad 10keeda oo ka dhici doono goobta Laasgalool inay sidaa ku warqabaan meel kasta ay joogaan kaga warhayaan waxaanu mar labaad aan ugu mahadnaqayaa sidii wanaagsaneyd ay noo soo dhaweeyeen reer Fadhigaab iyo sida wanaagsan ay noola qaateen shirka aad iyo aad ayaanu idinka mahadnaqaynaa dhammaan beeshana waxaanu ogeysiinaynaa shirkaas ka dhici doono Laasgalool degmada Celafweyn bisha 11aad 10keeda inay sidaa ka warqabaan shirkayagii qoladayadii ka timi waayeelkii sulaadiintii cuqaashii ka yimi Hargeysa markay yimaadeen rugahoodii way u horeyso Fadhigaab waxaana ku soo dhaweeyay Fadhigaab si fiican oo qaaya badan baa noo soo dhaweeyay annana waa mahadnaqaynaa kuwa kale saasay noo soo dhaweynayaan annagoo tuulooyin badan magaalooyin badan marayna shirkana aanu ku soo u go'aaminay in lagu shiro Laasgalool shirkuna uu yahay ururiye cid kasta baa uu raali gelin uu hogaaminayay suldaanka Suldaan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaale iyo salaadiinteeda kale la socota iyo chiefka aad iyo aad baan idinka mahad celinaya waxaan wabaad ka celinayaa aan nugu wadnay aan sidnay sidee u aad baa u mahadsantiin reer Fadhigaab teeda ku dhaqan ee Axmed Faarax Biciide ee golahan isugu timi iyo salaadiinta iyo afkaradka amaanta Axmed Faarax uu isla gartay ayaan ka mahad celinayaa mar saddexaad iyo mar labaadba aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa weeyaan marka hore Fadhigaab baanu joognaa arrinkaygu wuxuu ku xidhnaa waayeelka noo yimaada waayeelka waa yimi hadii la ku rooyahay waxaan wada qaadanay bishii 11aad 10keeda shir wanaagsan inaanu halka shirka laga qabto
maxamuud cabdi bare TV-ga Universal.